fadhigii maanta golaha wakiilada Soomaaliland oo gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa mudanaasha golahaasi waxay warbixin dheer ka dhageysteen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland oo mudanaasha golahaasi warbixin ka siinayay shaqada ay qabato wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay qarankan hal weyn ay u hayso waxa uu tilmaamay wasaaraddiisu imika ay diyaarisay shuruucdii darajooyinka ay ciidamada Soomaaliland qaadan lahaayeen waxa uu sheegay in waxyaabaha hortaagan ay ka mid tahay tirakoobka ciidamada militariga Soomaaliland in la tirakoobo darajada lagu siinayay la bilaabi lahaa waxa lagu xiray tirakoobkii in la sameeyo tirakoobkiina duruufihii dhacay dalka oo xaggii nabadgelyo xumidii meelaha qaar baa loo hakiyay ولينا هكسكي ما لقوتشرا وحوقت اللي بحنكرا مركب وحول بقرون كحالية هاي وحول بأديك عنت هذا كوتشرو باتيم لشيء كرا لكن وحكو قصة نقول يلا مو بلنقادي كرو وحنسر رجالنا تيمكي وقت بدن وهرب على قوت لقلي هذا أنت ولا قد يرسي هاي شروطها للربو إنه دم يسترمان نا وقت بدن قادن كرا maaha wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami waxa uu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland imika ay diyaarin doonto akademiyad ay ku tababartaan ciidamada militariga Soomaaliland si qarankan u yeesho ciidamo xooggan oo cadawga jilbaha u dhiga markaste wasiirka ayaa tilmaamay sidoo kale dib u habeyn lagu sameyn doono shuruucda maxkamadaha militariga Soomaaliland mudanaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa su'aalo tiro badan weydiiyay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland waxaanu si habsami uga jawaabay su'aalihii la weydiiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadam ayaa maanta waxa ay ka furtay dugsi cusub oo ay ka faa'iideysan doonaan caruur fara badan ee xaafadda Sheekh Mubaarak oo ka tirsan magaalada Hargeysa munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen ururka horumarinta waxbarashada Aadam ayaa waxay xariga kaga jireen dugsi cusub oo lagu baran doono xirfadaha kala duwan munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada barasaabka gobolka Maroodijeex Salaadiin iyo marti sharaf kale ugu hore waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka horumarinta dadka la haybsooco Barkhad ayaa ka waramay ujeedada furitaanka dugsigani waxaanu tilmaamay inuu wax weyn ka tari doono dadka ku dhaqan xaafadda 26 Juun waxaanu ka dhawaajiyay in ururkoodu muddo dhan ku taabay sidii loo hormarin lahaa ama loo dhisi lahaa dugsigani barasaabka gobolka Maroodijeex Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi Xamarji oo isaguna ka hadlay madashaasi ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay akademiyadda horumarinta oo iyadu hirgelisay dugsigani barasaabka gobolka Maroodijeex waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay lagana qayb qaato sidii loo hormarin lahaa dalkan Soomaaliland iskaashina loogu sameyn lahaa in wax la baro dadka ku dhaqan Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan oo iyaduna ka hadashay goobtaasi ayaa ku nuuxnuuxsatay inuu aad ugu faraxsan tahay in maanta la hirgeliyo dugsi noocan oo kala wax weyn ka tari doona waxbarashada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa dhankeega ka dhawaajisay inay wax la qaban doonto sidii loo hirgelin lahaa ama looga qayb qaadan lahaa inuu dugsigan si taaba galo hay'adda EDC oo kaashanaysa qaar ka mid ah hay'adaha warbaahinta Soomaaliland ayaa maanta waxa ay ka furtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa munaasabad ballaaran oo ay ku naaqashayaan isla markaasina ku shaacinayaan in 100 suxufi in ka badan ay ka qayb qaadan doonaan barnaamij ay furin doonto hay'adda EDC oo lagu baran doono qaybaha kala duwan ee saxaafadda dalka mas'uuliyiin badan ayaa ka qayb galay munaasabadaasi oo ka sheegay arrimo kala duwan oo la xiriira xaaladda ay Soomaaliland haatan marayso munaasabadan oo soo qaban qaabiyay wargeyska madaxa bannaan ee Jamhuuriya isla markaana ay maalgelisay hay'adda EDC ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka waxbarashada wasiirka warfaafinta saraakiisha hay'adda EDC hogaamiyayaasha saddexda xisbi qaran mas'uuliyiinta wargeyska madaxa bannaan ee Jamhuuriya arday iyo marti sharaf kale Mustafa Saxad Dhimbiil oo isagu kamid ah mas'uuliyiinta wargeyska Jamhuuriya oo horeyntii halkaasi ka hadlaya faahfaahin ka bixiyay ujeedada munaasabadani waxaana uu sheegay
inay munaasabadani tahay mid loogu talagalay in xadhigga lagaga jaro waxbarasho la siin doono 100 arday oo la barayo mihnada saxaafadda muddo 8 bilood ah isla markaana hore u soo waday wargeyskani jamhuuriya waxbarashada noocan oo kale ah oo ay hore u dhameystay 65 arday gudoomiyaha wargeyska jamhuuriya xasan siciid oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay taariikhda wargeyska jamhuuriya iyo marxaladihii kala duwanaa ee soo maray waxaana uu ku dheeraaday doorka uu ka soo qaatay wargeyskani hanaanka saxaafadda madaxa bannaan iyo dhacdooyinkii isaga u gaarka ah waqtiyadaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna wargeyska jamhuuriya ku hambalyeeyay dadaalka uu ugu jiro shaqo abuurista dhalinyarada iyo kobcinta mihnada saxaafadda Soomaaliland waxaana uu Xuseen adduunka lagu kala socdo shuruuc iyo etigis loona baahan yahay in saxaafadda dhinaceeda dhowrto gudoomiyaha xisbiga waxa kale oo ku baaqay in lagu dadaalo difaacidda dalka isla markaana dhinac looga soo wada jeesto wax kasta hagardaameynaya dimuqraadiyadda iyo nabadda Soomaaliland waxaana uu Xuseen muhiim tahay in si degdeg ah loo dhameystiro xaaladda deegaanka Kalshaale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Wade Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray mad sharafka iyo wargeyska jamhuuriya kadib waxa uu si adag uga hadlay furashada urur siyaasadeedkaas oo ku tilmaamay inay tani tahay mid aanu dalkani qaadi karin loona baahan yahay in cid daneynaysa inay xisbiya furato ay ka qayb galaan xisbiyada kale ee dalka ka jira waxaana ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland iyadu feejignaan dheer ka yeelato arintaasi gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlaya sheegay inay soo dhaweynayaan talooyinka ay u soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka ah sarkaalka hay'adda EDC Cabdi Xaashi oo isaguna halkaasi ka hadlaya ka sheekeeyay waxqabadka hay'adda EDC iyo xarumaha ay ku leedahay dalkan Soomaaliland waxaana uu xusay inay tani qayb ka tahay hawlaha shaqo abuurista ay hay'adda EDC wado wasiirka waxbarashada Soomaaliland Marwa Samsam Cabdi Aadan oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa ku bogaadisay wargeyska jamhuuriya shaqo abuurista dhalinyarada iyo siday ugu dadaalayaan inay xirfado shaqo u abuuraan dhalinyarada Soomaaliland waxaana xusteynay iyadu wasaaradahan ay wadaan qorshayaasha ay ku abuuri lahaayeen xirfado la baro dhalinyarada Soomaaliland si ay u kaafiyaan noloshooda ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta Soomaaliland Axmed Cabdi Xaabsi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa wax lagu faraxa ku tilmaamay wargeyska jamhuuriya ku dadaalo kor u qaadida iyo tayeynta mihnada saxaafadda Soomaaliland wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxa kale oo ka hadlay gogasha nabadeed ee madaxweynaha Soomaaliland u fidiyay deegaanka Kalshaale gudiyada waalidiinta ee ardayda gobolada Saaxil iyo Togdheer ayaa maanta waxa uu tababar la xiriira dhinaca waxbarashada uga bilaabmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer wariyayga Kaysa Axmed Digaale ayaa warka nooga soo diray halkaasi 60 xubnood oo kamid ah gudiyada waalidiinta dugsiyada gobolada Togdheer iyo Saaxil ayaa maanta tababar uga furmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer tababarkan oo socon doona muddo 4 maalmood ah ayna fulinayso hay'adda Caritas ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac kaas oo iftiimiyay muhiimadda tababarkan iyo ujeedadiisa salaanka bacdi sidii horeba laydinku yartaabtay waxaa halkan maanta kulan 4 maalmood oo aqoon isweydaarsiya aanu uga furaynaa 20 dugsi gudiyadoodii waxbarashada 20kaas 7 waxay ka yimaadeen Saaxil 13 kalena waa Togdheer gaar ahaan 9 burca gudaheeda ah iyo 4 degmada Oodweyne meel kale ba loogama yeelin waxa weeye waa 13 waa sida waa 4 Oodweyne degmada Oodweyne ah